وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ninbaa bayd yidhi gobaya intaanan miaalka iyo ujeeddada bilaabin, waxa uu yidhi ucallilu biاlآamaali arqubuhaa ma adyaqa alcaysha lowlaa fasxatu اlamali. ummad waliba rajay leedahay iyo ciday ku dayatay iyo ciday daba socoto. isweydii waxaan caawa kaaga warrami doonaa cumar ibnu khadaab mihaal ka mida amhiladii dhacday xilligii uu xukunka dowladdii islaamka ahayd u hayay oo loo yaqaano dadkii ugu cadaalad iyo saamaynta badnaa dunida muslimka. cumar ibnu khadaab oo ahaa shaksi aad wada taqaaniin oo qof kastoo ashahata u yaqaano oo haniyun cani tacriifa, hadda inaan idinka warramo hooyadii iyo aabbihii iyo hebel baa la odhan jiray, iyay dhacday qisadani xilligiisii. qisadu waxay ka dhex dhacday 3 nin oo reebaadiye ah iyo cumar iyo saxaabi jaliil oo la yidhaahdo abi dar alkhafaari. galab ayaa madiine waxaa soo galay 2 nin oo dhallinyaro ah oo dhillo colaadeed ka muuqato oo 2 seefood oo galku ka baxsan yahay nin dacallada kaga wada, ilaa ay la soo aadeen amiir almu'miniin cumar ibnu khadaab oo talinayo cadaaladdiisa lagu wada kalsoon yahay. cumar oo aanay maanta jirin inaan xataa ku hamino in ilaahay mar kale cumar oo kale inoo soo celin karo. ilaahay aan baryayno cumarro badan inuu inoo soo celiyo, laakiin ay ka cajiseen haweenka muslimaadkii inay dhalaan cumar oo kale cadaaladdiisii iyo naxariistiisii yaa ninkii loo keenay. waxa uu yidhi war bal seefaha dhiga, ninkan maxaad u wadataan? waxay idhahdeen yaa amiir almu'miniin, ninkan aabbahayuu dilay. wuu weydiiyey, wuxuu ihi war aabbahood ma dishay? wuxuu ihi haa, waan dilay amiir almu'miniin, ilaahay gacantaydu ku bixiyey. waxa uu weydiiyey maxaad ku dishay? wuxuu ihi beer baan lahaan ku rafaadi jiray, dhowr jeer baan u digay oon idhi xoolahaaga iiga celi beerta. isagoo awr soo wado oo si camdiya beertaydii ugu sii daayey baan arkay, dhagax baan ku dhuftay, dhagaxii buu aabbahood u dhintay. waxau idhi alqisaas oo camdi umaadan dilin? haa, qisaas baa kuu taal shareecada islaamka. waxau idhi waan ogolahay amarka ilaahay. walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab. waan hoggaansanahay buu idhi, haddaan diyaar u ahay, laakiin codsi keliya. dad caydha baanu ahayn, aabbahayaa xogaa kanziyahoo hantiya ka tegay, dahab iyo wax lamida, meel buu ku aasay. aniga keliya buu ii sheegay oo wiilasha u weyn, carruur iyo dad baahan oo dan yarana waa ka imid. aan u soo sheego 3 maalmood iyo 2 ku soo noqonaya, hallay fasaxo, hallay damiinto. saxaabadii fadhiday majliska ayuu cumar ku yidhi war yaa damiinanaya? waa la aamusay, nin yaqaanaaba ma jiro, baadiyaa ninkan laga keen. wiilashii buu ku yidhi war ma aaminaysaan inuu soo noqdo? idinkaa weliyu damkiiho mas-uuliyaddu idin saaran tahay. waxay idhahdeen maya yaa amiir almu'miniin, haddaaban dirka ku keen. dadkii buu yidhi wax ku damiinta ka soo raadi. wejiyadoodii intuu saa u egay ninkii uu is yidhi wuu ugu khayr badan yahay buu qabsaday, ee salaaxa iyo nuurka iyo iftiinku wejigiisa ka muuqdeen. wuxuu yidhi war ninkaasa u idamiino. ninkii marka la eegay wuxuu noqday ku nebi moxamed ku tilmaamay inaan dhulku xambaarin boor kale, samada dooggiihina ayna haraynin qof ka iimaan runnimo badan ninkaas, abi dar alkhafaari radia allahu canhu wa ardaah. abi dar azaahid alcaabid alcaalim alwaric attaqi ayuu qabsaday. abi darna wuxuu ku yidhi waan ku damiinanay orod. cumar wuxuu ku yidhi 3 maalmood baan kaaga dhignay, 2daad codsatay. ninkii waa uu maqnaayo. maalinta 3aad baa la gaadhay, waa la isugu yeedhay saxaabadii. qorraxdii way sii dhacaysaa, ninkiina lama hayo. abi darna yartajif, waa uu gariirayaa, waa naxsan yahay. wuxuu isleeyahay talo cumar muxuu kaa yeeli doonaa? ood og tahay cadaaladda inaanu ka leexanayn, ilaa ninkii adaa ka sii daayoo damiintay. nimankii dhiigga lahaana way fadhiyaan. xilli ay gabaabsi tahay qorraxduba meel waxaa looga jeeday niman dhallinyaro ah oo faras caydhinayo oo seef wata oo maxaan ku dhaha nin dhallinyaro ah oo faras soo caydhinayo soo socda. waa la sugay, ninkiibuu noqday, waa yimid. cumar su-aaluhan uu weydiiyey. wuxuu weydiiyey ninkii damiintay maxaad ku damiinatay? wuxuu uhi waxaan u damiintay ilaa aan la odhanin ummadda nebi moxamed qalbi naxariistaa kuma jiro in muslimahoo dil loo haysto oo iimaan iyo wanaag ka muuqdo oo markaa gaf laakiin galay, inta uu reerkiisii iyo dadku ka naxaayay dhaxalkoodii ogeysiinayo halkaasaa maalkiinnii ku jira. wax ku sima oo damiinta yaa la waayisayna taariikhdu u qorin. naxariis baan u damiintay buuri. wax naxariista ummadda nebi moxamed kuma jiro. saxaabadii oo nool baa laysu naxariisan waaysaanay taariikhdu u qorin.
cumar wuxuu weydiiyey waanu ku fasaxnayo hawdkaasaad gashayo laa raqiiba walaa catiid wax kaa qorayo wax ku daba socdiyo wax ku ilaalinaya ma jirina maxaad isaga maqnaan weydiiso in lagu dilaya maad ogeyn wuxuu ihi waxaan usoo noqday ilaan loodhan ummadda nebi moxamed wax run sheego oo ammaano leh oo ballamada fuliyaa kuma jiraan ballankaan galay baan fuliyey dhiiggii laygu lahaa baan rabaa in layga qisaasto qodobka saddexaad waxa weeye hadday labadaasu dhaceen yaa wuxuu ihi ninkaa maxaad ku maagtay dadka kaga maagtay wuxuu ihi ra'aytu asalaaxa fii wajhihi waalkhushuuca fii aharihi wejigiisa iyo muuqaalkiisaan khushuuc iyo iimaan igala muuqdeen kaasaadan agtiisa ku hongoobayn baan is idhi oo saasaan u qabsan su-aashaydu waxa weeye adiga weligaa ilaahay wejigii dartiis baa laguu qabsadaya maanta xishoodoo naxariisa imisay kugu soo dhacday ballan baad ilaahay dartii u qaadaya ha ka bixin aakharaa lagu su'aali doonaaye imisaad u fulisay aduu kugu adag yahay ballankaasi sida ninkaas qoortaa laga jaraayay ballankiibuuna fulinaya waa iskeenaya ilaan loodhan ummadda nebi moxamed ballamada ma fuliso wiilashaas aabbahood baa ka maqnaa ninkiina waxay u cafiyeen nin wanaag ka muuqdo oo laakiin dhiig islaan galay oo adduunka dembiga ugu xun buu galay laakiin haddana qof muslima khayr loogama quusta baa la yidhaahdaa inuu towbo keeno towbadu waa furanta waxaan odhan lahaa inaan ku cibro qaadanno inaan garanno inaan qudwo leenahay asaas leenahay taariikh leenahay tirar bira leenahay oon ku tiirsanno inaan islaamkeenna ku dhaqanno oon ku noolaanno oo aynaan musalsalaadka iyo aflaamtiiyo wiilasha maxaanku idhahdaa jilayaasha iyo maxaanku idhahda dadka nolosha ka dhacay aysan qudwo inoo noqon inaan dadaalno oo aan qudwadaa ku dayanno oon iimaan baadhno oo aan raadinno ayaan leenahay oo qisada aan idinku keennay waxaana doonaynaa ilaahay idamkiis ilaahay weydiisanaynaa inuu inagu anfaco annagiyo idinkaba waa farriin khayr wax lagaagaga rabo maanta adduunyihii ma jiraan ilaahay inaad ugu wanaagsanaato oon ugu wanaagsanaano wejigiis weeye addaalu cala alkhayri ka faacilihi intaad awooddo inaad waxa weeye nabigaa leh qofka khayrka dadka tusiyaay kii falay buu la ajri yahay isku day inaad farriintaa gudbiso si ay dad badan oo walaalahaahi u dhagaystaan oo qudwadii uu cumar ahaa iyo cadaaladda islaamka ay u bartaan iyo naxariista ummadda muslimkaa looga baahan yahay inay isu naxariistaan الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا